Barashantii barkii subaxnimo ee saaka ayaa roobab aad u waaweyn waxay ka da'een guud ahaan gobolka saaxil gaar ahaan magaalada madaxda Berbera. Roobabkan ayaan wax khasaare ah geysan marka laga reebo cabsi laga qabo xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera oo qaarkood ay yihiin qadiimi sida xaafadda Daaroole iyo Barwaaqo inuu saameyn weyn ku yeesho roobkani. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Cabdiqani Maxamuud Caate iyo Fariid oo si gaar ah ugu warramay warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay roobkan ka da'ay subaxnimadii saaka magaalada Berbera isagoo ka warramay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Saaxil in subaxnimadii saaka roobkani si weyn uga da'ay deegaanadaas oo hore ay saameyn weyn ugu yeelatay abaar baahsani. Gudoomiyaha dhanka kale oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariimo adag u diray dalxiisayaasha ku soo qulqulaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil inaan guud ahaan la tagi karin badduna ay si xad dhaaf ah u kacsan tahay haddiina la galo ay keeni karto khasaare naf iyo maalba leh. Gudoomiyaha muraasi ka hadlaya ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah sida tan: magaalada Berbera bishu maanta waa 22 bishii saddexaad 2026 waxaan diraynaa fariin ah in bulshooyinka kala duwan ee Jamhuuriyadda Somaliland ku sugan in dhulku rooban yahay badduna ay kacsan tahay. dadka waxaan u sheegaynaa in walba inuu gurigiisa ku sugnaado inta uu roobo ku daayaan dhulku rooban yahay. fariinteedu culus waxa weeyaan ma rabno in dhibaataydu ku timaado, ma rabno in nafo aan jecelnahay weyno. nin walba guriga ku sugnow, dalxiiskaagu ha ahaado markuu roobku laga qaado, markuu dhulku badduna ay degto dhulkuna qalalo aynoo ahaato. nimcada ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa. abaartii ayna haysan ilaahay naga jabiyey, nimcadaana ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa. inaguna waxa weeyaan ku dadaalno. waxaa ka shaqaynaysaa oo ku hawlan oo dawladdii hoose ee magaalada Berbera maayarkiiba shaqada ku jira iyo hawlwadeennadii kala duwanaa ee dawladda hoose ee Berbera heegankii aad bay u shaqaynayaan. waa tiim aad u dhisan. tiimka amba kooxda dawladda hoose ee heeganku waa niman aad u shaqaynaya. hablamada aad bay u hawlan yihiin. shaqo ballaaran oo xoog weyn ayay hayaan. ciidanka bileyska iyo ciidanka ilaalada xeebaha iyaguna aad bay u shaqaynayaan. annaguna waan ku dul kormeeraynaa. hawshu way socotaa. dhammaan degmooyinka kala duwan ilaa Laasciidle roobku u helay. xeebta nimanka xagal dhinaca ceel gardiye dhulkaa dhammaan u helay. halkan galbeedka ilaa Bulaxaar ilaa Shadeeda uu wada helay. dhammaan dhulku wada roobay alxamdulillaah. nimcaynu ku wada jirnaa. dhulku waa ka maayarkii degmada Mandheera aad buu u helay, wanaagsan tahay. Laasciidle uu helay, Laasadaca uu helay, Shiikh uu helay, gooda uu helay. dhammaan degmooyin kala duwan gobolka Saaxil ha u kala badnaadaan laakiin uu wada gaaray alxamdulillaah. bacdi gudoomiyaha ay weheliyaan ciidanka booliska gobolka Saaxil ayaa kormeero waxa ay ku tageen xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera iyagoo xaafad u maray. geesta kalena waxa ay dawladda hoose ee degmada Berbera u hogaaminayo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ay biyo ka sii daayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera iyagoo daadadka magaalada soo geliyeen dhanka iyo badda u jabiyay. roobabkan waaweyn ee subaxnimadii saaka ka da'ay guud ahaan gobolka Saaxil ayaa waxay faa'iido weyn u yihiin dadka xoolo dhaqatada ah oo hore ay u saameysay abaar baahsan. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Berbera.